anigoo ah Cabdicasiis Xasan Maxamed wali ahaa musharax madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya wali ii qasabay in madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya musharax nagada tala inka koyti xildhibaanada siyaasiyiinta ganacsatada aqoon-yahanka waxgaradka reer Koonfur Galbeed madana la taladi anina dareemi inaan ahaan lankii walaal dhibka Koonfur Galbeedka jarta ku biilahay marxaladda geek la roogona lankii limbaahanahay ana ahaa in saragi yaa wali go'aansaday in aan nagada musharax madaxweynaha Koonfur Galbeed maadaama waqtigii mandate-kii hore oo madaxweynihii hore dhamaaday yaa go'aansaday in aan nagada musharax madaxweynaha Koonfur Galbeed sidaas darteeda wala in sheegay shacabweynaha reer Koonfur Galbeed markasta u suroogo dal iyo dibadba baarlamaanka reer Koonfur Galbeed aqoon-yahanada reer Koonfur Galbeed siyaasiyiinta reer Koonfur Galbeed wali ku codsaday garab istaag iyo taageero buuxda oo mustaqbal leh inayna garab istaagaan insha Allah wali si gooni ah fariin ka diray xildhibaanada Koonfur Galbeed geedka mustaqbalka Koonfur Galbeed galantiyo ka jira dawladnimada Koonfur Galbeed galantiyo ka jirta reer Koonfur Galbeed dad maamul goboleedyada shacabka dadka anka badan daruufo badan ka noolyihiin qaxootinimo ka noolyihiin nabadgelyo xumo qabaan dhibaato badan qabaan mustaqbalka bariyay xildhibaanada Koonfur Galbeed wali faday ku fikiraan geeka meel iyo Koonfur Galbeed dhikaan taariikhda xusaasa Koonfur Galbeed wali u baahan tahay dawladnimo nabadgelyo cadaalad amni iyo horumarin u baahan tahay sida dartiye ay la ku shalaynay codka geeka la biyo ku fikireen mustaqbalka Koonfur Galbeed iyo maslaxada Koonfur Galbeed meel ka jirta wali ku codsaday xildhibaanada Koonfur Galbeed inay fikiraan ummadiyo aan fikiraan dalsho aan fikiraan dadsho aan fikiraan diintiyo aan fikiraan mustaqbalka Koonfur Galbeedna maanta galantiyo ka jarahin bariyay meeli inka haboonayd in dhikaan ku codsadeeyona si gooni ah wali in ku codsaday afkaartay idda meel aan injeeda idda si gooni ah wali in ku codsaday in codsho isiyaan أنا آمن سنة لكن كهبونا وما أنت مشكلة Koonfur Galbeed jirta ku biilahay in anaha yeedan ka codsaday